haweenaydan ayaa daweynaysa lugaha ninkeedii hore ee curyaanka ahaa, laakiin gabadha ay doonan yihiin ayaa dhulka ku tuurtay iyadoo ku eedeysay inay isku dayayso inay dhibto. gabadhii doonida ahayd waxay ka shakisay inay ka masayrsan tahay ninka ay ka qaaday, laakiin haweenaydii waxay si fudud u sheegtay inay iska tegayso haddii aysan rabin daaweynta. gabadhii waxay ku qancisay ninka inuu iska tago iyadoo ku adkaysanaysa in dhakhtar mucjiso ah oo keliya uu daweyn karo haweenaydanna xitaa aysan haysan shahaado caafimaad. laakiin caawiyihii ninka ayaa sheegay inaan la helin wax raad ah oo ku saabsan dhakhtarka mucjisada ah. isla markaas waxaa soo baxay ninkii rugta caafimaadka lahaa, wuxuuna sheegay in haweenaydu ay tahay ardaygii dhakhtarka mucjisada ah. gabadhii doonida ahayd ayaa ku adkaysatay inay tahay beenaaley, waxayna dalbatay in milkiiluhu uu waco dhakhtarka si loo xaqiijiyo. taleefankii lama qaban, sidaa darteed haweenaydii waxay sheegtay inay iyadu wacayso. gabadhii doonida ahayd ayaa ku jeesjeestay iyadoo leh way iska dhigaysaa. haweenaydii si fudud ayay u dhoola caddaysay, waxayna taleefanka ku tidhi macaane kaalay rugta caafimaadka. wax yar kadib gabadheedii ayaa timid iyadoo sheeganaysa inay tahay dhakhtarka mucjisada ah. dhammaantood waxay u maleeyeen inay kaftamayso, laakiin milkiilihii ayaa sheegay inuu wici karo ardayga dhakhtarka si loo xaqiijiyo. gabadhii doonida ahayd ayaa taleefankii ka qaaday iyadoo leh waxaa jira qof iska dhigaya. ardaygii oo ah dhakhtar caafimaad oo la qadariyo ayaa si caro leh ugu jawaabay in macallinkiisu weli ku jiro godoon. gabadhii doonida ahayd ayaa si jees ah u tiri in gabadhu ay runtii tahay beenaaley. gabadhii yarayd ayaa si toos ah taleefanka u qaadatay oo la hadashay ninkii yaabanaa, kaasoo ugu yeeray macallimad.